وحسن نبينا يري صلوات الله وسلامه عليه الصوم معلق بزكاة الفطر صوم كاغا waxaa lagu xiray zakatul fidriga hawadaan oo kala laada sida marwaxadaas iyo nalkan oo kale la aqbali maayo illa bi zakatil fidr soonka la aqbali maayo urnagu illa harumadina iska bixisamayn zakatul fidr waa leeyahay zakatul fidrti waa leeyahay harubo waa leeyahay daqarsoon waa leeyahay harubada waxa leeyahay qofkii oo habeenkaas iyo maalinkaas oo bisha dhalayso soonfur iyo maalintaas wixii cuni lahayd haysata wixii ka soo hera ay ka waajibaysaa waxaana la rabaa badar xabuub hal rabaa bariis yahay hadoo maaratahay oo yahay galay waa inuu nadiif ahaado wala yatayammamu al-khabitha minhu tunfiqun walastum biakhirihi ayda saudalil kan xun ha u qasdina wur idinko ka bixiyaa waa wixii waajib oo leeyahay karab idinka ba hadii la siiyo wax xun ma qaadan lahaynina badar oo biyo gaar ama baahal oo maaratay daldalooliyay hadii lagu sii qaadameys ilaahay agtiisa geysan ee wax fiican geysan ilaahay agtiisa marka afar madaal oo maaratay madaalka oo la leeyahay qumbaha oo wax dhalo saacab la raasiyayo way galeeyda hadee noqoto bariiskan waxa way 2 kiilo bar marka waxa la rabaa madhabteena badarkaas oo la cunayo qutul galibka maaratay ay waajibka ka dhacayna lacag madhabteena ma ogola oo shaafiiciida madhab kale ma waa ka saaray laakiin madhab kale waxay leedahay masaakiinta lacagta oo lacagta la siiyo laakiin madhabteena shaafiiciida hal raba qudkaas la cunayo ma in lacag ku ansixmayso inta nafaqada ku waajibtaad ka bixiyaysa zakatul fidriga gabarta booyaasada hadaad kira siiso ida iska bixiyaysa hadaad kira siinin ada ka bixiyay zakatul fidriga waxay leedahay 5 waqti waqtul wujub markay waajibayso bisha soon farcawdi loo jeedo waxaan laga bixiyaa qofkii oo labada juz kulansada juz shacbaan ay juz ramadaan iyo juz shawwal bisha ramadaan aakhirkiisa waa joogi bisha oo soon farcawdi awalkeedana waa joogi hadoo bisha ramadaan dhameysto bisha ramadaan hadoo dhameyso waayo qofka oo ka soo dhinto zakatul fidrigiisa laga marabo naagta asoo guursato bisha ramadaan ee dhameyso wayso bisha soon farcawdi sugayso laga marabo zakatul fidrigeeda wiila ku dhashay bisha ramadaan oo dhashay bisha soon farcawdi waa gaari waa ka baxay bisha soon farcawdi ma gaarin ka soo dhintay laga bisha soon farcawdi gaarin oo ka soo dhinto laga marabo harubadiis marka waqtul wujubka waxa waaye bisha ciida oo soon farcawdi loo jeedo waqtul fadila waaye waqtiga labaad waqtiga uu fadli badan tahay bayna salaatayn waaye salaada subax faralka iyo salaada ciida oo sunnada inta u dhaxaysa waxa jira waqtul jawaaz ayaa jira oo banaanta in la bixiyo bisha ramadaan day dhalato way ilaa ay ka dhamaato waqtigaas waasic iska bix inta dhihileed salaada markii la dukaay hadaan ahrubadi ka jirsho suuq baad inta dhihileed waqtul jawaaz la yiraahdo bisha ramadaan day dhalato ilaa ay ka dhamaato bixi karta waqtigaasna waasic waqtul karaaha waxa waaye بعد صلاة العيد عيد صلاة ذلك بعد الله لا ربنا بحيها صلاة عيدنا ولا سود كذيت وهو كراهية كل عيسى وقت التحريم حرام كل عيسى وقرمه مركي حرام كل عيسى وقرمه وهو بعد يوم العيد عيد يوم كذا كبعد عيد يوم كذا كبعد أدوى بحيها ترزقات فدر وراح ده أو مالك عيد وراح ده دراد وكبحي صلاة حرام كل عيسى marka waqtigaas oo fadliga badan aan ku jirnaa ilaahay maaragtay ramadaanka fadligiisa kuwii maaragtay ilaahay uu naxariistay kuwii ilaahay uu naxariistay ramadaanka fadligiisa Allah nagu daro kuwii ilaahay uu dimra Allah nagu daro kuwii kumayaalkii oo maaragtay la xuriyay oo 10kan dambe iyo cawad u dambayso oo ramadaanka u dambayso inta kumayaal oo bisha dhan la xuriyay oo maaragtay cawo kasta nabigu wuxuu 600,000 oo qofood ayaa naarta lagu xuraya cawo kasta ramadaan kamid 600,000 oo qofood oo naar u waajibta naarta lagu xuraya cawo kasta ramadaan kamid cawada u dambaysa ramadaanka inta kuma yaalaw la xuraya in la eg naarta lagu xuraya ayuu yiri nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ee Allah nagu daro. Assalamu alaykum wa rahmatullah.